بسم الله الرحمن الرحيم. halkani waa Raka TV xaruntiisa magaalada Maalmo ee dalka Sweden. waxaa khadka si toos ah ugu jira oo waraysi la yeelanayna gudoomiyaha xisbiga gurmadka qaranka Soomaaliyeed Abukaata Cabdullaahi Faarax Qaari oo ku sugan dalka Ingiriiska gaar ahaan magaalada Birmingham. Abukaata marka hore soo dhawow stuudiyaha TV-ga Raka TV. waa dhawahay Abukaate waxaa jirta in marka laga soo tago arrimaha siyaasadda oo kale ay jiraan arrimo ka soo cusboonaaday caasimadda Galmudug colaado ay halkaasi ka abuurmeen bal arrintaasi xisbi ahaan sidee u aragtaan? bismillaahi raxmaani raxiim haddaanu nahay xisbiga gurmadka qaranka Soomaaliyeed ujeedadeeda koowaadi waxa waaye baadigoobka midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed iyo in meel kasta oo ummadda Soomaaliyeed dhib ka jiro inaanu ka qayb qaadano sidii loo damin lahaa dabkaas ama xal loogu heli lahaa. haddii aan usoo leexdo arrinta kasoo cusboonaatay Galmudug waxaa nasiib darro ah in muddooyinkan dambe dalku xaalad adag uu ku jiro oo dagaal ku jiro asagoo dalkii dagaal ku jiro haddana meeshii Soomaaliya ay meel uga soo wada jeesan lahayd ayaa soo baxaysa in qabiiladii madaxa la isku geliyo oo deegaan walbaba 4 qabiil ama 6 qabiil ay hubkii ay ku taligeli lahaayeen inay isku xoreeyaan inay mataqaanaa cadowga kusoo duulay ay meel uga soo wada jeestaan in qabaa'ilkii ay ayagu iskula jeestaan. waa arrin naxtin leh oo laga xumaado. Galmudug oo hadda ay ugu dambeysay oo ahaa meeshii ugu nabad badneed markii loo eego gobollada Soomaaliya oo iftiinka nabaddu ay ka socotay ee la iskugu tegey Galmudug iyo Soomaaliba ay Galmudug iskugu timid iyo caasimadii ayaa nasiib darro waxaa dhacday miyiga waa ka dhexdhacaan in dadkii ganacsatadii iyo culimmadii iyo indhihii magaalada aan taariikhda ka dhicinin in lagu dilo 2 culimo isla markaasna ganacsatada ahayd. dadkii soo abaabulay, dadkii baabuurta soo siiyey, dadkii ka soo taliyey aan weli gacanta lagu soo dhiginin laakiin ay hay-adaha amniga iyo dowladda ilaa madaxweynuhu gobolka dowlad goboleedkaas lagu baadi goob jiro. waxaa nasiib wanaag ah inuu baaq ka soo baxay degmada Cadaado oo ay ku baaqayaan kuna heshiiyeen inaan wax ficil ah ama argoosi ah yaa ku baaqay markaas waxgaradka Cadaado reer Cadaado ayaa ku baaqay maadaama labadaas culamo ganacsatada ah caasimadda gobol Galmudug ay lagu dilay ayay ku baaqayaan inaysan wax reaction laga qaadin argudasho laga samaynin ay ka doorbideen nabadda iyo qiimaha ay leedahay wiilashoodiina la hadlaan. maalin dhaweedna haddaanu xisbiga nahay aan leenahay ha loo gurmado reer Galmudugow meeshaad joogtaan sidii arrintaas loogu bixi lahaa oo aysan arrintaasi u faafin. labada culimada ah ama ganacsatada waqtigoodii baa dhammaaday laakiin waa gartay marka haddii ficilkaas dhacay mataqaanaa dhuusamareebna ay ahayd caasimadii Galmudug oo nabad laga sheegay oo ay horumar samaynaysay oo ay dhinac dhismaha noqoto dadkii bulshada qaybaheeda kala duwan beelaha degan halkaasi oo dhan ay joogaan maxay saameyn ku yeelan kartaa? waa hadba sida arrintaas looga falceliyo. gobolka iyo dadka ku degani intuba waxay noqotay wax laga naxay oo aan la filin ayay noqotay. saameynta ay noqon kartaa waxa waayeen waxaaba isku fuugsaday arrintii dhammaa markii odayaashii iyo waxgaradkii reer Cadaado ay go'aansadeen arrintaas inay dowladda u daayaan, inay deegaanka reer Dhuusamareebeed u daayaan, inay reer Galmudug u daayaan oon laga ficil qaadan aanadaasna ay halkaas dembigaas halkaas waa dad dembi galay
dadkaa dembi galana cadaaladda la horgeeyo cadaaladana looga dambeeyo ay ku qanacsan yihiin. waxaa kaloo wanaag ah in ciidamadii gobolka booliiska hay-adihii amniga nabad sugidda oo dhinaca dhuusamareeb iyo dhinaca cadaado ay ku baxeen dadkii dagaalku bannaanka isku haystayna ay kala dhex galeen dadkii falkan sameeyeyna lagu raad joogo shacbiga reer dhuusamareebeed degan iyo qabaa'ilka degan halkaasina ay ku raad joogaan lasoo qabto intii ka qayb qaadatay iyo intii ku dhiiri gelisay iyo baabuurta dadkii soo siisay in la qabto ay cadaaladda hor keenaan cadaaladdaasna lagu qanco. adiga hadda ingiriiskaa joogtaa maxaa saameyn ku yeelan kartaa xaggaas oo aad kala socotaa oo aad mataqaana ka og tahay siday wax u jiraan oo kale? anigu asal ahaan waxaan ka soo jeedaa gobolka. waa gartay 30 sano 40 sano ugu dambeeyana siyaasadda ku jiray baan ahaa. musharaxii ugu dambeeyey ee galmudug raggii musharaxiintii baan ka mid ahaa. rag dalka intii koomada ku jiray ka shaqaynayay badbaadada ummadda iyo ayaan ka mid ahaa. raggii dib u dhiskii qaranka Soomaaliyeed ka qayb qaatay ama casmara ha ahaato ama jabuuti ha ahaato ama carta ha ahaato ama xamar ha ahaato ama gobol dalkaba ha ahaato ayaan ka mid ahaa. nin aad caawada ugu dambeysay baan wacayay shalaan wacayay in la isdejiya ayaan ku baaqaynay xisbi ahaan. waxaan u joognaana waxa weye muddada yarta oo aan nool nahay inaan dalkayaga uga tagno wanaag. waxaanan ku baraarujinayaa reer galmudug iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed qof kasta oo wax khayr leh oo maskaxdiisa ku jirto inuu dalkiisa iyo dadkiisa uga tago. abukaate cabdullaahi faarax qaarey waxaa ii sheegtay caawa inaad la xiriirtay iyo maanta iyo shalay yaa la xiriireysay oo xogta ku siiyey maxayse kuu sheegeen dadka la xiriireysay? waxaan la xiriirayay dad ka mid ah dadka deegaanka, dad systemka ku jira, dad shacbi ah oon isleeyahay dhexdhexaad bay ka yihiin oo aan dhinacna ahayn. dad jecel inaan nabaddii ay ku noolaayeen aan laga carqaladaynin. dad u arkayay waxaana inaysan ahayn yihiin wax meel kale ka yimide. laba qof waa dirirtaa iyo laba qof waxbay isku qabataa laakiin wax ka weyn inay tahay laakiin ay go'aansadeen in meel looga soo wada jeesto hay-adaha amniga iyo cadaaladana loo daayo. taas ayaa wax lagu farxa ah. baaqayaguna wuxuu yahay in la ixtiraamo odayaasha baaqa soo saaray dowladda iyo hay-adaha amnigu dadaalka ay ugu jiraan iyo shacbigu gobolkaasi in arrintaas nimankaa lasoo qabto cadaaladda la horgeeyo. shacbiguna uu diyaar u yahay inuu gacan ku siiyo. annaguna aan diyaar u nahay inaan dhiirigelin ku siino gacanna ku siino shacbigana baaqaasaan u jeedino iyo hay-adaha amniga. ma la xiriirta madaxda u sarreysa galmudug sida madaxweynaha madaxweyne ku-xigeen ama wasiirada arrinkaas sidee u arkaan ama ay maxay ka qaban karaan ama ay tallaabada ay hadda qaadeen maxay tahay? mas-uuliyaddu dadka ay ku dhacaysaay waa ayaga. mas-uuliyadda dadka hadda shaqadan aan kuu sheegaya waa ayaga. waa madaxweynaha, waa wasiirada, waa hay-adaha amniga. meel kasta ayaa laga soo wacaya. laakiin dadka uma baahnaba. dadka aan rabno inaan dhiiri gelinno xisbi ahaan waa shacbiga, waa dadka la khaldayo, waa dadka qoryaha wata, waa dadkaas dadka aan leenahay isdejiya u hiliya cadaaladda iyo amniga iyo nabadda. waa gartay maanta sida wararka qaar ay sheegayeen ciidamo iyo dad shacab ah oo ka soo jeeda cadaado ayaa ka soo baxay dhuusamareeb. arrinkaas maxaad xog ka haysaa? dadku way isku socdaan. dadku meediya wax badan baa la sheegayaa. meeshaa wax dhibii kama jiraan, wax khatari kama jiraan. xaaladdu caadigeedii bay ku soo noqotay. markii hore wax laga naxay ayay noqotay laakiin everything waxa weye under control bay ku jiraan. waa gartay abukaate xisbigaaga guddoomiyaad ka tahay xisbiga gurmadka qaranka Soomaaliyeed muxuu gacan ka geysan karaa marka arrintan sidii nabad loogu heli lahaa ama mataqaanaa dadku ay nabad ku wada noolaan lahaayeen? horta xisbiyadu waa kala
ujeedooyin. xisbigani waa xisbi u adeegaya ummadda soomaaliyeed, waa xisbi ka raadinaya wadajirka iyo nabadgelyada ummadda soomaaliyeed, waa xisbi shacbiga ka dhashay. markuu arkay dhibaatada jirta, markuu arkay midnimo la-aanta, markuu arkay dalkii in jufa state loo kala jarjarayo, waa xisbi halkaa ka dhashay. waa xisbi doonaya baadigoobka ummadda shanta soomaaliyeed, baadigoobka ummadda soomaaliyeed. xisbigani wuxuu ka cayaaraya dhalinyartuu la xiriiraya, dumarkuu la xiriiraya, culimmaduu la xiriiraya, siyaasiyiintuu la xiriiraya, maamulka iyo hay-adaha dowladda gobol ay yihiin oo dhan oo soomaaliyeed. waxba waktiga ugu badan oon gelinaynaa inta aan noolnahay waa intaas. ujeedadanayna waxa waaye inaan ilmaha yaga uga tagno sidii waalidkay nooga tegay, dowlad iyo dal iyo nabad iyo diin, laakiin aan ka hor tagno kala qoqobidda iyo kala jajaridda iyo qabiilaysiga iyo jufaysiga inaan ka hor tagno. mabda ayaga guud waa kaa kana shaqayna wadajirka soomaaliyeed, doonaynana cid kastoo fikraddaas aaminsan inay xisbiga kusoo biirto. iyadoo haatan ay jirto in dowladdu ay dagaal kula jirto al-shabaabka gobollo kala duwan sida deegaanka galmudug maamulkiisa hoostaga, hirshabeelle iyo meelo kaleba ay dagaalo ka socdaan oo al-shabaab lagula dagaalamayo. haddana waxaa jirta in gobolka shabeellaha dhexe oo kale beela halkaas degan ay dagaal u dhex maray. haddana waxaa muuqatay in dhacday in dhuusamareeb dad lagu dilay. arrintaas sidee u aragtaa marka? horta sideeda dal burburo, system dowlad burburtay iyo system burburay inuu soo kabto maalin iyo 2 beri iyo 3 beri ma laga sugayo. waxaa la yidhahdaa Roma maalin laguma dhisin. process ayaa socda oo dhismaya. process dowlad mar baa jirtay maalintii Sheekh Shariif uu yimid Jabuuti, intaan ka soo tagnay xamar aan nimid, dowladi ma jirin, hay-ad amni ma jirin, wasaarad ma jirin, ciidamo ma jirin, wasiirna ma jirin. maantayna dowlad kaamil ah ayaa jirta oo dowlad kastaaba dowladda kale markay waqtigeeda dhammaada ay tan kale u dhiibayso. system baa socda oo dhismaya. marka taas waxaa nala ka rabaa inaan dulqaad u yeelano, fahmno. laakiin way jirayaan dad hagardaamo ku haya processkaas dowladnimo, iftiinkaas dowladnimo ummadda soomaaliyeed usoo baxayso. dad baa jira ka shaqaynaya, laakiin meelay ku gaarayaan aysan jirin. aqlabiyadda ayaa ka badan. marka dulqaad baana la kaga baahan yahay, laakiin in la fahmo dowladnimo, in la fahmo dadka maanta joogahay dowlad kuma ku korin, dowlad ma arag, nidaam ma arag, nabadgelyo ma arag. waay abukaata qaari, yani adigu dadka qaar waxay aaminsan yihiin ama badi ay mataqaana ay aaminsan yihiin in dagaaladan kasoo cusbaana shabeellaha dhexe iyo midda haddan galmudug ka dhacaysoo kale inay dhabarjabin ku tahay dowladda dagaalka ay kula jirta al-shabaab. adigu arrintaas ma la qabtaa mise fikir ka duwanaad qabtaa? tallaabada xasan sheekh uu qaaday, madaxweyne xasan sheekh, in la fashiliyo dad badan baa raba, laakiin ku guulaysan mayaan. qabiil lacag ha la siiyo, qabiila lacag ha loo dhiibo, reer hebel ha la iska hor keeno. waxyaabaha burburka ka dhasha dowladeed waaye, waa wax laga gudbayo, waa wax margarato dad un lacag soo qaatay oo aakhirana haddee cadaab iyo ayaa u taala, adduunna de waxay ka faa'iidayaan lama arko. dowlad kastana waa soo martaa taariikhda dowladaha burburka ku dhacay markaad eegto. wax cusub maahan, waa wax laga gudbayo, waa wax laga gudbayo. dowladdii oo dagaal ku jirta in dadkii laga badbaadinayay nabad iyo wanaag iyo dowladnimo la barayay la yidhaahdo ayagii la iska hor keeno. wax qariiba maaha, laakiin waa wax iska dhammaanaya. waa wax hadda gobolladaad sheegaysana ka bilowday, haddana gacanta lagu hayo, dowladdu gacan bira ku qabatay. haddana isla markii la yidhi bal gobollada dhexena ayagana aan ka bilowno. taasina waa midda aan maanta xisbiga aan u leenahay, advocate u samaynayno leenahay, war jooga, war caqligu ha shaqeeyo,
ma garatay madaxda galmudugna madaxweyne ilaa kan ugu hooseeyahayna ay ka howliyiin iyo shacbigii iyo culimmadii iyo dadkiiba waayahay abukaate weli su-aashayda ku soo celinayaa in dowladda laga hardaamaynayo ama sidaad sheegtay guul iyo guul darro ha noo dambayso arrimahan ma isku xiran yihiin is leedahay in dowladda xaggeeda dagaalka ku jirto in dagaal beeladyo la abuuraayo ma isku xiran yihiin mise waa wax iska dhacaa leedahay ani waxaan aaminsanahay wax la abuuraya inay yihiin waxaan aaminsanahay wax lagu carqaladaynayo dowladnimada inay tahay laakiin wax laga faa'iidaya aysan jirin shacbigu waa daalay nabad buu rabaa iyo dowlad iyo xorriyad buu rabaa midda aan xisdoodaynana waa middaas aan leenahay saacaddan aan u soo jeedno oo aan gaarsiinayna baaqayaga meel kasta waayahay ugu dambayntii marka adigoo ka faa'iidaysanaya fursaddan ragga t v ku siisay guud ahaan maxaad ugu baaqaysaa soomaalida gaar ahaan meelaha dagaalada ay ka soo cusboonaadeen ama aanada qabiilka ah sida galmudug iyo shabeellaha dhexe waxaan ugu baaqayaa ummadda soomaaliyeed meel ay joogto midnimo ee wadajir waxaan ugu baaqayaa ummadda soomaaliyeed gobol walba oo dhibaata ka soo baxdo inay u gurmadaan gobollada oo dhan si arrintaas xal looga gaaro waxaan uga digayaa gobollada soomaaliyeed iyo madaxda gobollada soomaaliyeed inay joojiyaan aniga ima khusayso gobolkaasuu dagaal ka socda isku fiirsigaasi inaan caqliga uusan keenaynin waxaan ku boorinayaa gobollada soomaaliyeed meeshuu rababa ha ahaadee in nabadda loo heliyo in dowladnimada la taageero ayadaan wax ku gaaraynaa in ilaahay laga boqo waxaan leeyahay ugu dambaynna waxaan leeyahay meel kasta oo fal dembiyeed ka dhaco in meel looga soo wada jeesto cadaaladana iyo hay'adaha amniga la aamino cadaaladana loo hoggaansamo aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha xisbiga gurmadka qaranka soomaaliyeed abukaate cabdullaahi faarax qaarey oo u warramaya ragga t v isagoo oo jooga dalka ingiriiska gaar ahaan magaalada Birmingham soo dhowow waa mahadsan tahay aad waa mahadsan tahay